بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlayaa arrin wax la iga soo weydiiyay oo ku saabsan waxyaabaha ay haweenka isku qurxiyaan sida kareemooyinka. Marka maxay ahayd to gabdhaha ila soo xiriiray oo Afrika dhinacaas Afrika igala soo xiriiray oo i weydiinayay kareemooyin ay ka iibsadeen Afrika oo maxay to ay wax ku noqdeen oo wajigi ka haleeyay. Marka maxay ahayd to arintaas aan rabaa inaan wax yar oo jawaab ka bixiyo. Sida aad wada ogtihiinba alaabta Afrika lagu iibiyo badi waxa laga keenaa China iyo Thailand iyo dunida saddexaad. Alaabtaas marka waxa ay ka samaysan tahay cidna ma taqaano. Waxay u badan tahay alaabtaas in maxay ahayd alaab ma garanaysaa si cheap ah loo sameeyay oo maxay ahayd to sumahay aan ka hadalnay oo dhan ay xaadir ku yihiin inay alaabtaas tahay. Baakada la idin soo qurxinayaa, waxa lagu soo dhadajinayaa sawirro maxay ahayd to waxyaabo natural ah sawiradoodii ahaabisa lagu soo dhadajinayaa. Marka maxay ahayd to waana la idinka iibinayaa. Marka alaabtaas maadaama ay dunida saddexaad ka timiday oo aan cidna aanay regulate gareynayn, cidna waxa ku jira iyo waxa laga sameeyay aanay jeegareynayn, oo dadka soo samaystana intay meesha tagaan uun ay dhahaan waxaan caagan iigu shub, sawirkan iigu dhaji, magacaasna iigu qor, ay ku base gareysan tahay. Waxay ila tahay inaad ka taxadirtaan maadaama aad leedihiin wajigii naga halaysay. Wajigii waa muuqanaya oo waa korku ka muuqanaya. Marka maxaa damage alaabta aad leedihiin wajigii naga halaysay, maxaa gudaha ay gaarsiisay oo aydan arkayn ama aydan ogeyn, waa inaad isweydiisaan. Marka haddii alaabta lagu soo qoro natural iyo herbal, macnaheeda ma aha waa alaab nadiif ah oo aan sumaysnayn. weliba markaan that part of the world ka hadlayno oo dunida saddexaad laga hadlayo, wax sharci oo ka jira iyo wax macnaheedu regulation oo ka jira ma jiraan. wixii la rabaa la soo qasaa, wixii la rabaa la soo baceeyaa, wixii la rabaa dadka laga iibiyaa, wixii la rabaa lagu soo qortaa baakada xitaa. whereas halkan Europe oo kale for example, marka qofka uu kareem ama wax soo sameynayo oo uu caag ku soo shubayo ama dhalo ku soo shubayo, ingredient-kii laga sameeyay waa inuu dhalada dusheeda ku qoraa. waa sharciga wadanka sharciga Europe ayaa saas dhigaya. laakiin dunida saddexaad markaan ka hadlayno, wixii la rabaa lagu qoraa, wixii la rabaa lagu shubaa. marka adiga laga rabaa inaad go'aan ka gaartid lacagtaada waxa aad ku iibsanaysid, akhrisid oo aad hubtid. teeda kale horaan uga wada hadalnay alaabtan cosmeticska iyo problemska ay leeyihiin wadankan Europe, wadamada Europe ah. Europe waxaan dhihi lahaa wadankan Ingiriiska aan hadda joogno for example, alaaba lagu iibiyaa. waa idin sheegay supermarketada iyo shopiska waaweyn alaab waxa taala cheap, kareemooyin, shaambooyin, 2 baan 3 baan. horaan idin ku sharaxay arrintan dib uguma noqonayo. wax 2 baan iyo 3 baan supermarketka gadayo. faa'iidada maxay ahayd waxa faa'iidada aad ka sugaysid marka maxay tahay? waa alaabta 2 baan waxa laga yaabaa supermarketkan inuu 10 cent alaabta meesha ku jirto, weelka ku jirtaba, kareemka ama shaambada meesha ku jiro inay 10 cents lagu soo sameeyay. 2 baan lacagta inteeda badan waxay galaysaa. horaan uga wada hadalnay arrintan. waxa weeyaan waa xayeysiinta, waa caagada lagu soo shubay, waa stickerka lagu dhajiyay, waa maxay ahayd to alaabta deliverygeeda kharashka ku baxaya, shopiska laga iibinayo, wholesale ahaanka looga iibinayo, faa'iidada ay saaranayaan. waxaasoo dhan 2daas baan la wada leeyahay ama 3daas baan ayaa la wada leeyahay. marka waxa meesha ku jira wax nuxur iyo faa'iido leh toona maaha, waa qashin iyo sun. halkaana qashin iyo sun dadka loo soo baceeyaa laga iibiyaa. weliba sharciyada Europe waa ka fiican yihiin adduunka. sharciyada cosmeticska ee jira kuwa ugu fiicana Europe ka jira. adduunka intiisa kale Europe is the best marka laga hadlayo cosmetic regulations. maxaa yeelay Europe waxyaabo badan oo cosmeticska lagu daro oo adduunka intiisa kale u fasaxan ayaa Europe ay mamnuuceen. for example hadda America oo kale waxba lama mamnuuco. cosmeticskooda sunta aad ugu badan tahay. cosmeticska Europe laakiin waa controlled.
even idin leeyahay wuxuuda maxay to sun waa ku jirtaa laakiin haddana marka adduunka loo eego Europe cosmetics regulationskeeda cid ku haysata ma jirto marka China wax lagu soo walaaqa ama Thailand oo waliba Africa sharci ka jirno wadamo aan waxba controleynin waliba aad dhex joogtaan de ilaahay baad leedihiin laakiin inaad taxadirtaan u baahan tihiin oo wax inta meel lagu soo shubay aadan ogeyn waxa uu ka soo jeedo aydan jidhkiina marinin waa inaad waxa aad jidhkiina marinaysaan aad ogtihiin akhriseen labadan kelmadood oo Afrika laga isticmaalo natural and herbal labadaas kelmadoodna waa kelmado purely business ah kelmad ma aha hadal macna sameynaya oo alaabtan ingredient-keeda ka turjumaya ma aha waa wax xayeysiin ahaan dadka lagu rabo in lagu soo dabo oo la alaabtan waa herbal alaabtan waa natural marka alaabta ay meesha ka sameeyeen ayay rabaan inay ku xalaaleeyaan oo herbal iyo natural la idinku soo qora marka idinka go'aanka leh waxaan kaloo idin xasuusinayaa dadka hadda for example dadka lacagta leh ama Arab ha ahaadaan ama Afrikaan ha ahaadaan ama Chinese ha ahaadaan naftirkiisa aad alaabta u doonataan marka ay shopping sameysanayaan oo wax fiican oo quality ay rabaan waxay yimaadaan Europe ay yimaadaan mainly American waa tagaan laakiin Europe waxa lagu yaqaanaa quality product idin ma dhahayo Europe alaabta lagu sameeyo waa perfect laakiin Europe waxa lagu yaqaanaa quality adduunka xoogaha meelaha ay ku sii dambayso in alaab quality la produce gareeyo waa Europe marka haddaad rabtaan inaad wax iibsataan quality ah ama macquul ah waxaan idinku kula talinayaa inaad ka fikirtaan European brands waxaan China lagu soo walaaqay iyo qashinkan aad iska ilowdaan maxaa yeelay Chinese-kii aba Europe shopping usoo aaday waa adiga aad China shopping ugu aadaysaayo wax kuugu soo walaaqa why dadkii maxay to halkan usoo shopping tagay adiga aad xagga dib ugu wareegaysaa iyo waxyaabahan qashinka ee Carabta laga keenay inta af carbeedka la idinku soo qorqoro bakhuur iyo bakhaaq iyo lagu sheegayo guryaha ku buufsanaysaan oo sunta ah waxaasna iska daaya Soomaalida wixii af Carabi ku qoran yahay waxay u haystaanba maxay to wax kale wax special ah it doesn't matter Carabi iyo Faransiis iyo Ingiriis wixii doonaha lagu qoro wixii aan sax ahayn oo ingredient-ka ku jira aanay qornayn oo ingredient-ka aanay dhalada ku cadayn ka fogaada inkastoo waliba alaabta China iyo adduunkaas kale lagu soo sameeyay wixii la doonaba la idin soo qoraayo iyadoo wixii dhalada ku jiray aanay ahayn waxay doonaan ayay soo qoraan waxa meesha ku jira iyo waxa qoran ismale maxaa yeelay regulations ma jiraan wax isweydiinay ma jiraan wadanka alaabtaas loo dhoofinayo Afrika ku yaalana regulations ma jira iyo waxaan meesha lagu soo shubay dib u baaraya marka waa sun halkaas laga keenay ina iska ilaalisiinaan idin kula talinaya gabdhaha isoo weydiiyeen oo ku mahadsan yihiin su'aal fiican oo muhiim ah isoo weydiiyeen wax Afrika waxa China lagu soo sameeyay ama Thailand ama dunida saddexaad lagu soo sameeyay oo 10 senti lagu soo sameeyay ama wax ka yar oo inta caag lagu soo shubay magac lagu soo dhajiyay ha iibsanin go'aan waa inaad ka gaadhaa arintaas haddaad alaab iibsanaysid waxa la yiri Soomaalidu waxay yiraahdaan laba daran kala dooro meel walba sunta waa taala laakiin haddaad sun iibsanaysid waxay ila tahay inaad ka fakirtid Europe brandskeeda dad xitaa waxaan arkay Soomaali ah oo Europe ku nool wax Carabta laga keenay iyo wax Afrika laga keenay iyo ismarinayo why Arab iyo Afrika wax ugu doonanaysa adoo Europe joogo ma fahmin af Carabi yar iyo af Soomaali yar lagu soo qoraa maxaa aniga gal Carabi iyo Soomaali hadduu sun iga iibinayo walaalkay hadduu sunta iibinayo kama iibsanayo maxaa yeelay lacagtaada qofku sumeynaya inaad siisid waaba xaraam why aniga qof isumeynaya aan lacagtayda u siinaa lacagta bilaash ma aha waa soo shaqaysay waa soo dhididay wax aan ku sumeynaynin ku iibso aniga taladayda saas ila tahay waxaan rajaynayaa videoga inaad ka faa'iideysateen haddaad ka faa'iideysateen subscribe gareeya thumbs up siiya haddaad maxay tahay wax su'aalo kala qabtaan isoo weydiiya idinkoo mahadsan wassalaamu calaykum waraxmatullah